waa galab sabti ah bisha mayna waa 12 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax miino oo ka dhacay suuqa xoolaha lagu kala iibsado oo ku yaala Buulomareer gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya oo ay dad rayida ku dhinteen iyo dhowr iyo 10 qof oo lagu dilay markaasi dagaal al-shabaab ay lug ku lahaayeen oo ka dhacay Hiiraan. xagga ciidamadii deegaanka deganaayo raggii isdifaacay xoolada difaacanaya ay 2 nin ka dhaawacantay ciidamadii dawladda la joogay raggii halka ku sugnaanay way caafimaad qabaan alxamdulillah niyo ragga ku soo duulay raba inay bilaqaystaan kamiga xoolahooda garqabayaasha ahaayeen halkaas 13 baa meedkooda uga tageen. waxaad kale oo aad dhagaysan doontaan Somaliland oo soo saartay go'aan ay hay'adaha laga leeyahay Soomaaliya kaga mamnuucayso in ay mashaariic ka fuliyaan halkaasi. wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranku waxay faraysaa dhammaan hay-adaha ay khusayso inaanay hay-adaha maxalliga ka ah waddanka Soomaaliya aanay runtii ka howlgeli karin Somaliland. runtii shuruucda iyo qawaaniinta hay-adaha maxalliga hay-adaha u yaalla aan dawliga ahayn runtii way burinaysaa. barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. afar ruux ayaa ku geeriyootay 5 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii miino dhulka lagu aasay ay maanta ku qarxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala deegaanka Buulomareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiye ku-xigeenka degmada Kuntuwaarey Muxyidiin Khaliif Caliyow ayaa VOA u xaqiijiyay in maalmaha sabtida ah ay yihiin maalmaha ugu mashquulka badan ganacsiga xoolaha ee suuqa Buulomareer, sidaas daraadeedna ay u malaynayaan in suuqa la beegsaday. qaraxa ayaa waxaa sidoo kale la xaqiijiyay inay ku dhinteen ugu yaraan 5 neef oo lo ah. lama oga cidda ka dambaysa qaraxaasi, hase yeeshee maamulka degmada Kuntuwaarey ayaa ku eedeeyay mas'uuliyadda weerarka ururka al-shabaab. wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 13 ka mida maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay, dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaal saaka aroortii ka dhacay goob markaasi dagaalkaasi oo dhex maray maleeshiyo iyo xoololey iyo weliba waa maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyo xoololey deegaanka lagu magacaabo Xalfooley oo ku dhow deegaanka Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiya al-shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen deegaankan oo dadka ku nool ee xoololeyda ah ay ka diideen al-shabaab amara ah in ay bixiyaan xoolo ay ku sheegeen sako. deegaanka ayaa u jira degmada Buulaberde ilaa iyo 60 kilomitir. gudoomiyaha degmada Buulaberde Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada dagaalka la gasha al-shabaab ay ka tirsan yihiin maleeshiyo beeleedyo xoololey ah oo ay waayadanba waday markaasi kacdoon ka dhana al-shabaab kuwaasoo gobolka looga yaqaano Macuusley. saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa dhinaca kalena sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano kale oo gobolka ka tirsan. dadka reer Ciraaq ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyaga oo ka qaybgalaya doorashadii u horeysay oo heer qaran ah oo laga qabto dalkaasi tani markii kooxda la magac baxday dowladda islaamka laga saaray halkaasi sanadkii hore. dadka codbixinaya ayaa 7,000 oo qof ka soo dhex dooran doona 329 xubnood oo baarlamaanka geli doona. goobaha codbixinta ayaa laga diyaariyey guud ahaan dalkaasi kuwaas oo ay ku jiraan xerooyin ay ku jiraan ilaa 3 milyan oo ay degan yihiin dad ka barakacay goobihii ay maamuli jireen kooxda Daacish. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa maanta iska casilay xilka hogaamiyaha xisbiga UNMO oo ay leeyihiin qowmiyadda Malayga ah. xisbiga dalkaasi waxa uu xukumayay tan iyo markii Malaysia ay qaadatay xorriyadda sanadkii 1957. arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii xisbiga Barazan National Coalition uu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacda Arbacadii aanu ka soo gudubnay. goor sii horeysay oo maanta ah ayaa ra-iisul wasaarihii hore Najib iyo xaaskiisa Rosmah Mansour waxaa laga soo celiyey oo laga hor istaagay inay ka dhoofaan
dalka maleeshiya. waaxda socdaalka dalkaasi waxay sheegtay in lamaanahani lagu daray liiska madow, sidaasi daraaddeedna aysan dalka ka bixi karin. najiib ayaa laga yaabaa inuu wajaho dembiye dhowra oo ugu weyn yahay musuq maasuq. shalayna waxaa xilka ra-iisul wasaaraha maleeshiya loo dhaariyey mahaatiir maxamed oo ah hogaamiye sumcad kule maleeshiya, horeyna muddo dheer usoo maamulayay. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a. aan ku horeyna, sida aad wararkeena ku maqasheenba 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 5 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii miino dhulka lagu aasay ay maanta ku qaraxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose. haddaba khadka telefoonka ee buulamareer ayaan kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada kuntuwaarey muxiidiin khaliif caliyow oo ka mid ahaa dadkii gurmadka u sameeyey dadkii uu qaraxaasi saameeyey. markii arrintaas aan kaaga hadlo, waa maanta waa maalin sabti aheyd. sabtidin waa magaalada populationkeeda waa zaaid uu badan yahay. ciidamada amnigina maaragtay siseena amniga u sugaayeen. markaas kadib meelihii goobaha suuqa iyada iyo maaragtay meelaha oo maaragtay mujtamaca ay u badan yihiin ayaa maaragtay beryahaanba ay keeneen inay oo maaragtay waxyaabaha qarxa ay geliyaan. waa garta, marka sidee wax u dhaceen? qaraxana xaguu ka dhacay? qaraxa ku kudhaay meel oo la yirahdo suuqa xoolaha la yirahdo oo buulamareer ku yaalo oo laamiga uu saaran yahay, kiiskeedu meenadaas ay ku jirtay ay qaraxday. haye, marka miinada yaa qarxiyey? meenada waxa waaye cidii ay qarisay daana qarisma meeno rumud waay, rumud waa miino rumud laga control. marka khasaaraha ka dhashay ma inoo faahfaahi kartaa? khasaaraha ka dhashay waxa waaye maaragtay ilaa iyo maaragtay xoolo oo maaragtay ilaa iyo 5 neef oo maaragtay ay dhimatay, kuwana oo dhaawac ay noqdeen oo lo-e, iyo 4 qof oo maaragtay ay ka dhinteen oo shacab iyo 5 ay ka dhaawacmeen. waa gartay, marka dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah dad rayid ah miyaa mise waxaa ku jiray ciidanka dawladda? maya, dad rayid ahayn, dad rayid ah. maxay tahay sababta suuq ay ku ganacsanayaan dad rayid ah loo beegsanayo? dadka rayida sababta waa dareemi kartaa. sababaa lala beegsanayo askartii iyo dawladii, ciidanka dawladii oona magaaladii amniga ay kuwada sugaayeen maaragtay suuqyadii goobaha oo maaragtay ay oo inay ilaaliyaan in oo maaragtay dadka shacabka oo aan la dhibaateynin, xantudo aysan laga dheinsin, nidaam ay ganacsadaan iyo amniga saasa loo sugaayo. ilaa iyo hadda ma ogaateen cidda ka dambeysay falkaasi? ilaa iyo hadda cidda ka dambeysay waa lagu ciidama qolada hugus la yiraahdo al-shabaab waa dadka maaragtay waxyaabaas ay sameyn waa la yaqaanaa. waa garta, marka dadka rayidka ahaa ee ku dhaawacmay ma heleen wax gargaar caafimaad ah? dadka rayidka ku dhaawacmay ilaa iyo hadda dadka shacabkooda iyo maaragtay wixii oo maaragtay aniga taakula aan sii karno oo aniga aan gaarsii karno ayaan gaarsiinay. isbitaalada ayaa la geeyey, meesha lagu dagay qaarkooda muqdisho loo soo qaaday. hadda waa sidee xaaladda halka uu qaraxu ka dhacay buulamareer? hadda buulamareer xaaladda waa okay, waa suuqii oo maaragtay kastaas qaraxa uu ka dhacay kadib dib uu maaragtay u furmay. maaragtay amniga iyo magaalada waa okay, 100% wax dhibaataad kama jiraan. kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellaha hoose muxiidiin khaliif caliyow oo igugu waramayay khadka telefoonka. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dhinaca kalena ugu yaraan 13 ka mida maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay, dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal saaka aroortii ku dhex maray maleeshiya xoololey ah iyo al-shabaab deegaanka lagu magacaabo xalfooley oo ku dhow degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan. maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada buulaberde cabdiraxmaan daahir guure. qadka telefoonka ayuuna ugu waramay. waa mahadsan tahay dhadigii iyo ragga saxaafadda wasaf america waa salaamaya. colaad maanta saacaduhu markay ahaayeen subaxnimadii hore adigu meesha halka loo yaqaano 7 subaxnimo ayaa waxaa bilowday dagaal ka dhexeeyo dadka deegaanka, ciidamada la yidhahdo jabhadda macwiisyada la yidhahdo deegaanka ragga xoololeyda iyo ciidamo deegaanka aan ku caawinay oo dawladdu ay leedahay iyo al-shabaab oo kusoo duulay tuulo la yidhahdo xalfooley kamida mataqaanaa deegaanka gobolka hiiraan qeybo kamida ah degmooyinka buulaburde iyo jalalaqsi iyo hoos timaado dhulka miyiga. adugu
jallaqsi dhinacaas way uga dhowdahay oo kilomitirkeedu hadda waa ilaa dhowr iyo 30 kilomitr. Dhinacan kalena hadda weli bardadana way ka fog tahay oo waa ilaa iyo 60 kilomitr. dhul miyi waayo dadka miyiga degan xoololeyda. dagaalka wax khasaaraha u geystay marka dagaalka xagga ciidamadii deegaanka deganaayo ragga isdifaacay oo xoolada difaacanaya ahay 2 nin baa ka dhaawacantay. ciidamadii dawladda la joogay raggii halkaa ku sugnaayeen way caafimaad qabaan alxamdulilah. niyo raggii kusoo duulay raba inay biliqaystaan dadka miyiga xoolahooda dhagarqabayaasha ahaayeen halkaas 13 baa meydkooda uga tageen. raggii shabaabka way ku jabeen dibna waa uga laabteen. isla markaas dawladda go-aan ay qaadatay dawla burda iyo maxaasib ciidamada waa ka dhaqaaqeen. waxaa lala wareegay tuulo la yihahdo moqokuri iyo goobihii saldhigyada u ahaa waktiga dheer. hadda saacadan kula hadlayo gacanta dawladda ku jiraan iyo Sooman iyo moqokuri meel la yihahdo istiraatiijiya u ahaa ayaga. alxamdulilah hadda waxaa la dhihi karaa guulo dagaalka saakib wuxuu ahay astaan bilaab oo guulaha ka mid a. guddoomiye waxaa soo noqnoqota oo mar walba laga sheekeeyaa maleeshiyaadkan xoololeyda ah ee hubaysan ee la dagaalamaya al-shabaab oo macawisleyda looga yaqaano deegaanka. maxay yihiin raggani waa rag aan ku jirin fursadda ciidanka dawladda Soomaaliya iyo stateka ayna mataqaanaa ayna taageero iyo siinin iyo qalab ciidan, laakiin wadadkii miyiga oo hubkii haysto. laakiin raggan ay dhacayaan ee xoolaha ka dhacayaan wax badan ay ku sameeyaan dhibaata xukun adag oo marogsi oo xoolada lagu qaadanayo xilliga sekada loo yaqaano iyo caqabado ayna wax dul qaadan karin ku sameeyeen. kacdoon al-shabaabka iyo ayaga ka dhexeeya ayaa ka dhaca goobaha deegaanka. marda haddii xoolahaadii iyo dadkaadiina ay dad gacanta u galayaan dagaalku waajib kugu noqonaya. dadkaas waxay go-aansadeen inay isdifaacaan ay shabaabka la dagaalaan. waa dad abaabulan oo habkii qabiilka hab ka bedelan u abaabulan oo go-aansaday ayagoo midaysan reer kastaba le inay iska celiyaan al-shabaab. gobolka hiiraan macawisyada ragga la dhaha waxay kamid yihiin dadka lagu xisaabtamo. qorshaha istaraatiijiyada balaanka u samaysan waxaa kamid a in dhammaantood goobahaas marka la qabto dadka maamulaya ay noqdaan oo ciidamadooda ay noqdaan dadka maamulayo. cadowgana hadda mar walba ciidan u baahan yahe hadda dhulka la qabanayo iyo magaalooyinka laga qabanayo dadkoodii wa ama maamulaha ama ciidanka noqolayo. dhinaca kale fatahaad iyo dhibaatooyin xagga roobka ayaa ka jira gobolka oo jawhar iyo beledweyne iyo laga soo sheegaya. buulo burde iyo jallaqsina waxaan ognahay webiga shabeelle u maro. iyaga wax dhibaato kasoo gaaray dadka waa mahadsan tahay. dhibaato aad iyo aad loo taaba karaa kasoo gaartay. xagga dalagii beerahana waa baaba-ay. magaalooyinkana waxaa soo gaaray dhibaato weyn oo guryihii iyo qaybo badan oo kamid a buulo burde hadda anigaan kusuganahay ilaa iyo 2 xaafadood iyo buundadii ereyadeeda wadadii isku xiraysan webiga labadiisa dhinacood deegaanku isticmaalayana way xiran tahay. 2 xaafadoodna xaafad walba waa go-doontay oo biyuhu way la wareegeen. waxaa intaas dheer dadka waxay ku tiirsanayeen beeraha. dhammaanba waxaa meesha ka baxay dalagii beeraha. marka dhammaan dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaya magaalooyinkaas number 1 waxaa ay beledweyne, number 2 waa buulo burde, number 3 waa jallaqsi. webiga sida u socdana waa maalin bana meel buu dhibaateynaya. maalmaha lasoo dhaafay beledweyne aad u dhibaato badneed. dhimashadeeda ka dhacday wax badanaa ka dhacay. maalmaha hadda lagu jiro maanta ay kamid tahay buulo burde ayaa culeyska ugu badan saaran yahay. marka anoo ka faa'iidaysan fursaddan waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo dawladnimada Soomaaliya taageeradeeda garab taagneed iyo cid kasta oo ummadda Soomaaliyeed gargaari jirtaba inay ka warqabto fatahaadu waxay kamid tahay masiibo cusub oo ka dhacday gobolka hiiraan. gudoomiyaha degmada buulo burde cabdiraxmaan daahir guure oo u waramayay waryaheena maxamed colaad xasan. galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a. wasaaradda qorsheynta somalilan ayaa warmurtiyeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in hay-adaha laga leeyahay soomaaliya aanay ka howlgari karin gudaha somalilan. warmurtiyeedkan oo ka koobnaa 4 qodob ayaa sidoo kale hay-adaha caalamiga ah lagu faray in mashaariicda aanay iyagu fulin ee ay ururo maxalli ah u wakiishaan. wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay kusimaha wasiirka qorsheynta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi injineer xuseen ibraahim buuni waxaana uu ugu horreyn weydiiyey qodobada ay soo saareen. wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay ku howlan tahay dib u eegista dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka howlgala somalilan. kaasi runtii waa kow. wasaaradda qorsheyntu qodobka labaad, wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay faraysaa dhammaan hay-adaha ay khusayso inay fuliyaan go-aankii ka soo baxay kalfadhigii 11aad ee golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna taariikhaysnaa
3 bishii shanaad ujeedkiisuna ahaa inaanay hay-adaha maxalliga ka ah waddanka soomaaliya aanay runtii ka howlgeli karin somalilan. runtii shuruucda iyo qawaaniinta hay-adaha maxalliga hay-adaha u yaalla aan dawliga ahayn runtii way burinaysaa. markaa guud ahaan hay-adaha maxalliga ee ka howlgala waddanka soomaaliya inaanay ka howlgeli karin mashaariicna ka fulin karin somalilan gudihiisa kana howlgeli karin. qodobka saddexaad wuxuu ahaa sida xeerka ururada aan dawliga ahayn ee xeer number 43/2010 qeexayo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo hay-adaha qaramada midoobay in aysan siin mashaariicda hay-ad kale oo caalami ah, balse mashaariicda ay fulin karaan amaba fuliyaan hay-adaha maxalliga ee laga leeyahay somalilan amaba ka jira, iyadoo fulinaysa wasaaradda qorshayntu xeerka ururada aan dawliga ahayn ee xeer number 43/2010. waxay wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda somalilan howlgelinaysaa islamarkaana tayeynaysaa guddida wadatashiga ururada aan dawliga ahayn. waxay sidoo kale ku howlan tahay dib u eegista xeerka ururada aan dawliga ahayn ee xeer number 43/2010 iyadoo kaashanaysa hay-adaha ay khusayso. isdultaagno qodobka ku saabsan hay-adaha aan dawliga ahayn ee laga leeyahay soomaaliya, maxaa lagu sababay marka maxaa ku sababayseen marka la leeyahay kama shaqayn karaan somalilan? walaal waxaanu ku sababeynay hay-adaha maxalliga ee somalilan laga leeyahay ee reer somalilan leeyihiin ayaa sida xeerka horan usoo sheegay xeerka NGO-yada ururada aan dawliga ahayn ee xeer number 43/2010 dhigayo hay-adaha maxalliga ayaa fulin kara mashaariicda waddanka laga hirgelinaya ee hay-adaha caalamigu keenaan. in hay-adihii waddanka ka jiray ay helaan xuquuqdii iyo xaqii uu dastuurka jamhuuriyadda somalilan siiyey. marka sidaa daraaddeed walaal waxay mas-uuliyadi naga saaran tahay inaan shuruucda iyo qawaaniinta iyo xeerarka somalilan u yaalla aanu dowlad ahaan ku ilaalina inay sidoodii u shaqeeyaan oo sidoodii u hirgalaan. wasiir ku-xigeenka qorsheynta somalilan injineer xuseen ibraahim buuni oo u warramayay wariyaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah toddobaadkan waxaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dalka dibaddiisa safar uga maqnaa dib ugu soo laabtay deegaanada jubbaland ayaa waxa uu dhaleeciyey siyaasadda dowladda federaaliga ee soomaaliya. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay dhexdhexaad ka noqoto arrimaha khaliijka, wuxuuna sheegay in hadda sida muuqata hal dhinac ay u janjeersatay madmadowgan soo kala dhex galay dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka puntland oo isaguna tallaabo taa la mid a horuu qaaday qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ciidamo aan la shaacinin ilaayo hadda cidda ay ka marqaataan iyo waddanka laga leeyahay ayaa toddobaadkan weerar ka geystay deegaanka baryire ee gobolka shabeellaha hoose, halkaas oo ay ku dileen dad lagu sheegay inay shabaab ahaayeen. dadka deegaankaas waxay tilmaameen in weerarkaasi lagu bartilmaamsaday dad beeraley ah. dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga waxay sheegtay in weerarkaasi aan dad rayid ah haba yaraatay wax dhibaato lagu soo gaarsiinin dadka la bartilmaameysadeen ay al-shabaab ahaayeen. magaalada beledweyne waxaa la sheegayaa in ilaa iyo 4 qof ay dhinteen kadib markii gaari cagafcagafa ay la socdeen uu kula rogmay gudaha magaaladaasi, gaar ahaan meel biyuhu ay aad ugu badnaayeen oo dadku aanay u suuragalaynin in ay si caadiya u maraan. ha yeeshee inta badan waxay dadku ku gooyaan deegaanadaasi meelaha qaar cagafcagaf oo dabadeedna keenta mararka qaarkood in ay rugmato cagafcagafta dadna halkaasi ay ku dhintaan. weli magaalada waxaa go'doomiyey oo gudaha magaalada yaalla oo jiifa biyo aad u fara badan oo ka dhashay fatahaadii roobabkii ka da'ay qaybo ka mid a gobollada dalka iyo fatahaadii webiga shabeelle ee magaalada beledweyne uu maro. gobolka sanaagna waxaa la sheegayaa in 2 maleeshiya beeleed oo dega gobolkaasi ay ku dagaalameen, halkaasoo toddobaadkeenu ka soo gudubnay ay ku dhinteen dad 10 ruux kor u dhaafaya tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka sool iyo guud ahaanba deegaanada kale ku hareeraysanee dagaaladu ay ka socdaan inay nabadda qaataan oo ay joojiyaan waxyaabo kasta oo dhibaatooyin colaadeed keenaya. waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo toddobaadkan ku laabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu dhaleeciyey habdhaqanka dowladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda dibadda. waxa uu ku sheegay
in arrinta imaaraadka iyo sida loola dhaqmay aysan sax ahayn islamar ahaantaasina dowladdu ay ahayd in arrimaha ay dhexdhexaad ka noqoto. haddaba hore waxaa u jirtay in maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe arrimo dhowra oo siyaasadda dibadda ay ka midka yihiin isku qabteen. dastuurka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxay ku doodaysaa in uu sharciyan u siinayo sharci ahaan in ay iyadu arrimaha dibadda wixii heshiisyaa iyo sidoo kale siyaasadda lagu dhaqayo dowladda soomaaliya dhinaca dibadda ay dowladdu iyadu wakiil ka tahay. haddaba isqabsigan cusub ee maamulada qaarkeed iyo dowladda dhexe muxuu saameyn uu ku yeelan karayaa habsami socodkii howsha dowladnimo? arrimahaas iyo kuwo kale waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho ayuu jooga. maxamed, hadalka ka soo yeeray axmed madoobe iyo dowladda soomaaliya sida ay hore xiriirkii kala dhexeeyey imaaraadku uu xumaaday, saameyn intee leeg buu ku yeelan karayaa dowladnimada soomaaliya? bismillah, saameyn kala duwan oo ku yeelanaya. sidaa ogtahay soomaaliya waxa ay hadda ku tiirsantaha ama loo daadejiyay hab federal states oo maamul goboleedya sida caadigana 5 maamul goboleed ayaa jirta iyo dowladda dhexe. haddii maamuladu ay meel istaagaan, dabcan dowladda dhexena meel istaagto, waxay caqabad ku keenaysaa yani hanaankii wada shaqeyneed iyo in dalku hore u socdo oo uu noqdo dal isku xiran oo hal ujeedo leh. marka dhibaato badan ay ku keenaysaa arrintan taagtaaga mar kasta kusoo noqonayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. dowladda soomaaliya mar haddii ay ku doodeyso inay iyadu sharciyan dastuuriyan dastuurku uu sharci u siinayo inay siyaasadda arrimaha dibadda ay iyadu sharci u leedahay, maxaa maamulada la gudboon marka inay sameeyaan? bilowgii horeba dhismaha maamul goboleedyada waxaa umalaysaa in yani golaha baarlamaanka oo sharci kasoo saarin oo la dejinin oo dastuurka iyo iswaafajin habka maamul ay yeelanayaan ayaa hadda si emotional waxaa ku dhisan maamulo badan. dabcan dowladdana way aqbashay. marka midaasa waxay keenaya in dastuurkii qabyaa la kala jiijeeto oo qodobka 54 iyo 53 isku qabsadaan oo qolo walba si ay ufasirato. midaasa marka wuxuu keenay in qolo walba ayada garta is siiso. marka waa dhibaatadaas ugu xoog badana keenaysa. haddii dabcan xal loo helo dastuurka, maamuladana ay ku wada qancaan iyo dowladda dhexe habka loo wada shaqeynaya, waxaa umalaysaa in guul ay gaarayso. ama haddii taas la waayo, waxaa umalaysaa in jiijitanka uu xalkiisu adkaanayo. dhinaca kale ka waran siyaasadaha dalalka shisheeye ay soomaaliya kula dhaqmaan. dad badan baa dhaliilaya oo dowladdu marar badan waxay ku celcelisay in loo baahan yahay madax banaanida soomaaliya la ixtiraamo, la xushmeeyo. kuu muuqataa in mararka qaarkood ay dowladahaasi ku talax tegayaan siyaasad ahaan arrimaha soomaaliya? jamaalow, state kasta oo dhibaata ku dhacay sida soomaaliya oo kaleeta, yani faragelinta caalamigu waxaad umalaysaa inay kusii faradhuubnaanayaan. maxaa yeelay danaha ay leeyihiin ayaa mar kasta ka xoog badan tan dalka. taasna waxaa u sahlaysa intay helayaan meel ay soo gabaadsadaan in faragelintooda ay caadi iska noqoto. waana sax, marar kala duwan ayay quwadaha shisheeye ee soomaaliya ay xadgudubyo badan oo ay ku sameeyeen oo xagga dhaawici kara qaranimada soomaaliya. midaasna dabcan sida muuqata haddii iskaashi iyo midnimo ay soomaalida dhexdooda la yimaadaan, waxaad umalaysaa inay ka guuleysanayaan. laakiin de taana haddii ay imaan weysana, iyaguna waa shaqadooda ay wadanayaan qolooyinka shisheeyaha ah. qaranka iyo madax banaanida dalkana iyo xataa maamul kastoo dalkan yimaadana dhibaato culus ay ku noqonaysaa. aad baad umahadsantahay maxamed. kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igu warramayay. dhegeystayaal, barnaamijka intaas ayaan kusoo gebgabaynayaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com. bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a. waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, cawayska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha. haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan ayaad dhegaysateen. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. nuur haye haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud. waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. ibraahino toddobaadkan rabadaantiina wayna soo ururinaysaa, foodayna soo dartay. maalmo koobanaa ka haray maalmo koobanaa ka haray. ilaahay khayrkiisa hana siiyo. waa soo dhaweynaynaa haddii alla idmo. bal dambuuska soo geliya, burgaraafaha soo geliya, macsharada soo geliya. marka enerjigan badan ma jiri doonana malaynayaa toddobaadka soo socda. intaas inta cunto maartaa inaad tiraa waa daalilahay. marka kasii faa'idayso maalmahan yarka ee ka harsan rabadaanta. waa tahay dhambaalada intaanan u gelin dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa hees halkudhigeedu yahay haddaan ka daawoobo. haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib ugu noqon maayo miya? marle allah iga bixiyo. salaamaad. haddaan ka daawoobo khadiijo fooday nuur codkeedaan soo xasuusanaya. ma iyadaa mise waa kuwii kale dib loo soo qaaday ibraahino? yaa kale he tahay khadiijo foode iyo codkeeda heesta halkudhageedu yahay haddaan ka daawooba. intaasaan ku dhaafno dhambaalka ugu horeeyaan barnaamijka soo qabanaya ibraahino. intaadan heesta kale aada durbadaf soo dhihin, marka hore baa la yidhi waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe cadey waa tahay ibraahim yare. ku celiya cayaartooyda markay gool qurux badan ibraahim oo dhaliyaan oo aada loogu sacbiyo waxay yidhahdaan weli maana maqal, dhegtay taagaan weli isa waxaan kama maqlayo. dhegeystayaasha soo qoraya ibraahim yare iyo caashe cadey waxaad u malaysaa inay si fiican u yaqaanin. marka waxaan leenahay si fiican cod dheer kusoo dhaha. waa taa way mahadsan yihiin. annagana salaanta allamidan hawada usoo marinaynaa. marka xiga bay yidhaahdeen waxaanu kala nahay dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa buu yidhi culamaa udiin iyo axmed xaashim khaliif ibraahim cadde waxa uu ku magac dheeryahay samawade, kaamil maxamed askar, maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi, jawhara maxamuud aw xasan, dayr maxamuud aw xasan, koos maxamuud aw xasan, rayaan maxamed shariif maxamed nuur
iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur iyo raxme maxamed shariif maxamed nuur waxay kala joogaan jabuuti iyo etoobiya waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa la yidhi asad maxamuud aw xasan iyo marwo barwaaqo mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada fiiq ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaan ilaahay uga baryaynaa baa layidhi inuu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kala hela ubad khayr qaba baa layidhi ducada sii raacsha baa layidhi waa tahay haddaad tidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela maxaa haray aabiintun baa hartaan aan ku dar ibraahino waxaan dhambaalkan keenlay caasho cabdilatiif barrow aadan iyo cabdirashiid cadow rashka iyo mustafe dhako madaxey iyo waxay yidhaahdeen deerow iyo samiire cadow iyo ibraahim shacbaan dadkaasina waxay kala joogaan baydhabo muqdisho bardaale iyo deegaanka qandhood waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba jecelyihiin inay gaarsiiyaan cadde ibdow iyo waxay yidhaahdeen shamso shacbaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynel wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed cadde ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay maxamed caddow soo weynow noqo kii waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca anigan aaminayaan raacinaya heesta xigta ama heesta labaad ee barnaamijka ibraahino taad soo qaban lay ha igu daalin gabar yahay hadallada adag ee soo taagtaagan ibraahino heesaha hadda saase maxaan samaynaa saasa ha igu daalin gabar yahay marba damac ku qaada cawaysa daruuraha wanaduna ku deeqine duudub xaggee ku dhuunsanayd heestan ibraahino heestan waa la soo helay anaa soo helay waa tahay dhegeystayaashana hanala dhegeystaan baadida marba damac ku qaada cawaysa daruuraha wanaduna ku deeqine duudub waxay hore markiyaan ku doortay siyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi markiyaan ku doortay siyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
damba madahuba ama wax laysu diidaa dogti roob kaleyle ala dararanu dhalay dadabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaa qoraad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegtay qoraad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegtay ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu soo xasbuutee ha igu daalinayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaale weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu soo xasuutee ha igu waa tahay codadkii axmed cali cigaal iyo faadumo cabdulaahi maandeeq ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haye caasho waxaan soo qabanayaa hambalyo 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 ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaanu halkan tahnid aroos uga diraynaa baa layidhi annagoo kale ah macalin maxamuud maxamed xasan macalin maxamed axmed ugaasa mahad abwaan cabdinaasir sheekh bashiir iyo maxamed sheekh bashiir iyo yuusuf sheekh cabdulqani iyo macalin bashiir macalin xasan maxamed daahir faadumo gelle ishwaaq cabdi xanaan cabdi xamdi queen baa layidhi iyo sidoo kale aamine quraysh waxay kala joogaan dhammaantood dunida dacladeeda oo dhan baa layidhi waxaanay tahniyad farxad leh u dirayaan maxamed geelle waxauu ku magac dheer yahay mufti iyo boqoradiisa baa layidhi qaaliga ah ee xafse sheekh xuseen cadde oo dhowaan isguursaday halkay ku aqalgaleenna looma soo sheegin hase ahaatee waxaanu eeb uga baryaynaa aqalgalkaasi dhex maray mufti iyo xafse sheekh xuseen cadde in ilaahay uu ka dhigo midkii barakale ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhegeystayaashana caasho heesta kalen usoo qabanayno waa jacaylku miyuu hadlaa waxaan soo xusuusanaya hodan badbaado hodan cali hodan badbaado codkeedii intaan adiga kula hadlaayay haddaan dhagaxyada u heeso haabay u oran lahaayeen wuxuunbaa iga waa tahay waa heesa aada macaan ibraahim oo maalmahan ma maqal maanta waxaan malaynayaa kaydkii dhinaciisii dambe baad u dhacday dhagaxaa ku dhaama miya salaamaad
dhankii dhambaalada haddaan ku noqonno dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray caasho aadan maxamed iyo maxamed iimaan garboore iyo maxamed aadan maxamed axmed aadan maxamed cabdi aadan maxamed shamis aadan maxamed shacni aadan maxamed xaliimo aadan maxamed hodan cabdi diirane maxamed iyo ifraax cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed cabdirasaaq cabdulaahi maxamed canjeex carab cali shire dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dunida daafaheeda waxayna jecel yihiin in ay tahniyad hawada u marayaan aabe cabdiqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waaberi oo gabray ay ugu dhalatay bay yidhahdeen xiingolool gabadhaasi ducadu waa xaggin ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyada dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa ayeeyo xasno geedi xayo iyo hooyo cajabe sheekh cabdi waxaa kaloo ku jira cabdi sheekh cabdi ciise sheekh cabdi buu ku magac dheer yahay iyo habaryar maryan sheekh cabdi habaryar faadumo sheekh cabdi habaryar khayro indhoy baa la yiri iyo sidoo kale habaryar nimco wehliye iyo sidoo kale ismaaciil sheekh cabdulaahi xasan sayow waxaa la yidhi saydow sheekh cabdulaahi xasan iyo shariif sheekh cabdulaahi xasan waa dhammaan ilmo sheekh cabdulaahi xasan maxamed aa ku jira ibraahim ismaaciil muuse axmed iyo sidoo kale cabdikariin waxaa kaloo dhambaalkana ku jira axmed abuukar cali khaliif iyo sidoo kale abaayo raxme baa la yidhi sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda iyo abaayo rafiico sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan kawthar sheekh cabdulaahi xasan iyo saygeeda muuse macalin daahir oo ay gabadh ugu dhalatay degaanka lamagaras baa la yidhi oo hoos taga baa la yidhi degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd 29 bishii abriil aan soo dhaafnay ee sanadkan 2018 waxaana gabadhaasi loo bixiyey maa'ido muuse macalin daahir soo barbar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacdaa anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay heesta kalen dhegeystayaashan u hayno waa suleeqa iyo codkii xuseen shire jaamac
waa tahay codkii xuseen shire ciyaar jecel iyo heestii suleeqa ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxa uu naga soo gaaray ay dahabo maxamuud cali dahabo geesay iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo waxay yidhahdeen hooyo maryan maxamed daahir marin cadde iyo amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal yare nawaal iyo saara iyo waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa socdiyo cumar iyo caruurtooda saana iyo maxamed doctor cabdulmuncim axmed maxamed injineer mukhtaar axmed maxamed injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo injineer cabdalla axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed bahjo yarey waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan liibaan maxamed axmed carab iyo igraam axmed maxamed oo ku aqalgalay london u k waxaana ay leeyihiin waxaana ay beeda kaga baryaynaa in arooskiina uu ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo uunayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaana naguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeyn ibraahinow waxa uu naga soo gaaray waxaa la yiri ugu horeyn waanu idin salaanay bahweynta v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadaha caashacuud iyo waxaa la yiri daandure waata waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga dhambaalka dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo maka guure waxaa kaloo ku jira cusmaan axmed waa suge waxaa loo yaqaanaa cusmaan jambiri waa cusmaan jambiri iyo sidoo kale cabdulaahi axmed waa suge muumin axmed waa suge iyo timre axmed waa suge muuse cali gurey iyo maxamuud kiishow muumin uulow cali iyo macalin muxyidiin cumar sabriye iyo macalin cusmaan faarax jimcale nabadoon waa suge maxamed cabdulaahi axmed xabiibo maxamed macow iyo nimco maxamed cusubleh xaawo jimcaale waxay ku magac dheer tahay xaawo shiino iyo eedo faadumo daahiye iyo daahir muuse cali dhammaan dadkana waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana kuwa qaar kalaa jooga dhammaan dadkana waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana qaar kalaa jooga moqokori waa la joogaa tardo gumaare kooxle iyo moore eri baa la yiri waxaana tahaniyad gaarsiinayaan iyagoo isku duuban oo dhammaan deegaanadaasi aan soo sheegay oo dhanna kala jooga macalin aamin axmed waa suge iyo boolo cabdulle guure oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri suleymaan macalin amiin axmed waa suge ducada waa caasho cuud cadde baa la yiri waa tahay waxaa ibraahim oo layga rabaa inaan u duceeyo suleymaan macalin amiin axmed waa suge oo ku dhashay magaalada muqdisho marka ducadaasi ma sida la iisoo wakiishaan ugu duceeya mise anna waa ku wakiilan karaa waxaan leeyahay suleymaan macalin amiin soo weyno oo noqo kii wanaagsanaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin heestana noo raaci waa taa ibraahim waxaan hore u maqli jirnay may siray jacayl iyo ma ku siray jacayl maanta waxay taagan tahay ma ku diray jacayl jacayl ha ku adeegsado hadduu ku adeegsado meeshuu kuu dirina gaar hawshiisa ma sahlana waa tahay ma ku diray jacayl bal qaabkuu dadka u dirto iyo bal fariimaha uu dadka u dhiibo waxaanu ka sugaynaa idil barkhad ma ku diray jacayl codkii idil barkhad ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmayna toddobaadka dambe haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiin ba idin leh sidaas iyo nabad gelyo maku diri jacayl wali maku yidhi qof daba soco maku diri jacayl wali maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabayla habeenkii dhibka miyadayowda dabayla habeenkii dhibka miyadayowda maku diri jacayl wali maku yidhi qof daba soco maku diri jacayl wali maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabayla habeenkii dhibka miyadayowda
dhigataa dawamiyaad ka dhigataa iyo codka idil barqad dhegaystayaal dib ayaad u dhegaysan doontaan oo waan usoo laaban doonaay falastiin maxaa noo xiga markana dhinaca doorashooyinkii dalka ciraaq wararka caalamka haddaanu eegnana shacabka dalka ciraaq ayaa maanta gelinka dambe u dareeray codbixin markii ugu horreysa tan iyo markii dowladda ciraaq ay taageero iyadoo ka helaysa xulufo uu horkacaya maraykanka ay ka guulaysteen kooxda isis ra-iisul wasaaraha haatan talada haya haydar al cabaadi ayay u badan tahay inuu ku guulaysto doorashada balse waxaa loo malaynayaa in uu la kulmi doono loolan adag wariyaha v o eda xuseen saxnuune ayaa warbixintan ka soo diray qaahira dadweynaha dalka ciraaq ayaa saakay u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaanka dalkaasi waxaa la arkayay kumanaan qof oo safaf dhaadheer uga jira magaalooyinka baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan xilli ciidamada amniga si weyn ay u ilaalinayaan goobaha codbixinta doorashada waxaa ku tartamaya musharaxiin kor u dhaafaya 7,000 oo ka kala socda guud ahaan 18 gobol ee dalkaasi si ay uga mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi oo tiradiisu ay gaarayso 329 qof doorashadani waxaa ku loolamaya axsaab matalaya dadyowga kala duwan ee dalkaasi sida muslimka sunniga iyo shiicada kurdiska iyo masiixiyiinta natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaanka dalkaasi ayaa la filayaa in la shaaciyo 3 maalmood gudahooda 24.5 milyuun oo qof ayaa xaq u leh inay codeeyaan dalkaasi ciraaq si ay usoo doortaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee waddankaasi mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka ciraaq iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda baqdaad ayaa ka mid ahaa dadka maanta codkooda ka dhiibtay dalkaasi xaydar al cabaadi ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq oo ka codeeyey bartamaha magaalada baqdaad ayaa warfideenka u sheegay inay doorashadani xadidayso mustaqbalka dalkiisa هذه الانتخابات إن شاء الله تحدد مستقبل العراق القادم والمواطنون بهذه العملية الديمقراطية هم اللي يقررون ra-iisul wasaaraha xukuumadda baqdaad ayaa yidhi doorashadani ayaa xadidaysa mustaqbalka dalka ciraaq dadweynaha reer ciraaq ayaa codkooda si dimuqraadi ah u dhiibanaya ayagoo go'aaminaya arrinkaasi sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta dalka inay u soo baxaan codbixinta si aan u dhisno mustaqbalka dalkeena دعوة إلى كل العراقيين هاي انتخابات مهمة sidoo kale iyaad calaawi ku-xigeenka madaxweynaha dalka ciraaq ahna hogaamiyaha isbahaysiga wadaniga ee dalkaasi oo ka hadlay goobta uu ka codeeyey maanta ayaa dhinaciisa ka sheegay inay jiraan waxyaabo burin kara habsami u socodka doorashada baarlamaanka dalkaasi هناك مخالفات كثيرة تجري بنفس والله إذا استمرت بالمنحى اللي مستمرة به الآن حتما ستؤثر على النتائج madaxweyne ku-xigeenka dalka ciraaq ayaa yidhi waxaa jira mukhaalafaad iyo gaboodfallo ka dhadha habsami u socodka codbixinta doorashada meelaha qaar sidaasi darteed waxaan aaminsanahay haddii ay sii socoto inay saameyn ku yeelanayso natiijada doorashada baarlamaanka dalka ciraaq ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii dowladda ciraaq ay ka adkaatay ururka argagixisada isis ama daacisha sanadkii hore sidoo kale doorashadani waa markii afraad oo dalkaasi ay ka dhacdo tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi sadaam xusein sanadii 2003 xuseen saxnuuni v o a qaahira mahadsanid xuseen haatan aan dib ugu laabano heestii fanaanada idil barqad eena ugu dambeysay barnaamijkii aad dhegeysateen ee hambalyada iyo heesaha oo ay soo jeediyeen ibraahim daanduray iyo caashucuud inuu dareemadaragay dushuud aku dushunbaad ka aragtay
maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo afkaya daabolo dhigtu waxaanay doonayn waa inaad diidaa dhigtu waxaanay doonayn waa inaad diidaa idaacaddeenna galabnimona dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca soo saarista ee farsamada naga caawiyeena intaa ayuu ku egyahay tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo dhegtu waxaanay doonayn waa inaad diidaa dhegtu waxaanay doonayn waa inaad diidaa